asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta kuwooda ugu xiisaha badan waxaan diirada ku saari doona natiijooyinka waaweyn ee Yurub kasoo baxeen ciwaanada ay dabcan kasoo baxayaan ama ciwaanada ay dhalinayaan ciwaanka ugu weyn waxaa haysta kooxda Manchester City oo ku bashaashan naadiga Arsenal 4 gool halay ku garaaceen sidoo kale tan horyaalka wuxuu ka dhigay dhankii Itixaad inuu tagi doono sanadkii saddexaad oo isku xigto Gunners-kan dabcan awood ayaa loo sheegtay kulankan farqiga labada kooxood haatan u dhaxeeya waa 2 dhibcood oo kaliya Man City 2 kun lay gacanta ku haystaan sheekada waa isku soo ilaatay Arteta iyo kooxdiisana waxay noqon doonaan koox dabcan kaalinta labaad ku dhameysana sida u badan tahay lana dhihi doono waa dadaasheen marba haddii ay City la tartanteen ciyaarta qiimaha badan Erling Haaland ayaa kulanka soo gabagabay dhamaadkeedii markuu shabaq gaaro wuxuu ahaa goolkiisii 49aad oo uu dabcan ka caawiyay Phil Foden Norwegian-ka alla muxuu caawa gool raadiyay waxa laga celshay haddii uusan ahaan lahayn ninka lagu magacaabo dabcan Ramsdale waxaana isleeyahay Arsenal si aan caadi loo fogeyn lahay sidoo kale markii la fiiriyo Haaland garoonka inuu ka baxo gool la'aan cadaalad darre ah waxaan ugu bilaabay goolkiisa waxay tahay ninkan waxa laga celiyay iyo dhamaadka ciyaarta soo shabaq u gaaray celebrationka uu sameeyay sida guud markii la fiiriyo Arsenal kulankan waa lagu kifaaxay horta qaybtooda ciyaarta waxa darbad lagu riday waxa lagu helay 2 gool iyo Arsenal waa yaabeen sidoo kale markii la fiiriyo Kevin De Bruyne gool ku daafuro kubadda u wareejiyay Haaland oo darbad banaanka dhulku socdo cunayso gamoo celin waaya Ramsdale kadibna Stones madax ku dhashay kubad oo Kevin soo korosay inkastoo markii la diigan dhaaf la hadana markii la hubiyay reeta ee sababtoo cagta markii la fiiriyo waxa ku jirta offside-ka ka saartay Ben White haddii la isku soo laabtana sidii la sheekada la u wateen City kubaddooda wareejisteen waxooda iska wateen haddana mar kale caaga dahab Kevin De Bruyne dabcan ay qaabay kubadda Erling Haaland siiyay laakiin intuusan Kevin saddexeen Haaland xitaa fursado helay uu dhalin waayay ugu dambeyntii Arsenal goolka calanka waxa shabaq u gaarsiiyay Rob Holding daqiiqada maxaa lagu daro waxa ficnaan Arsenal waa nagala badiyay City horyaalka waa naga xoogay laakiin hadda horyaalkiina waa laga xoogay Haaland goolkiisa dabcan celebration ku sameystana shabaq uu gaarsiiyay saadartay marka meesha awood caada ka dhacday Man City cid iska dhicin karta mala ani Arsenal waxaan dhahaa waa dadaasheen saana dabcan ciidamadiina ku tuuraa sababtoo City cid iska dhicin karta malaha marxaladahan la joogo iyo baab xidiga uu haystay sida isugu daba dhacsan yihiin cid celin karta malaha dhinaca kale markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne kooxda ugu jecel waa Arsenal 8 gool ay dabcan shabaqooda gaarsiiyay English Premier League dhinaca kale markii la fiiriyo xitaa waxa la soo qaadan karaa Erling Haaland 49 gool xilli ciyaareedka marayo 33 gool iibel shabaq gaarsiiyay rikoorada sameynay asna 7 caawin xilli ciyaareedkan sameeyay waxa ka badan oo kaliya oo la soo qaadan kara ilaa 5 ciyaartooy De Bruyne 16 caawin sameeyay Bukayo Saka 12 caawin sameeyay Trossard asagana dabcan 9 caawin sameeyay haddii iga hubiyo bal goolkii dhalshay Holding hadduu Trossard caawina 10 caawin u noqonaysa Robertson wuxuu caawiyay sida u diiwaan gashan 8 caawin sameeyay Michael Olise 8 caawin sameeyay saadartay marka meesha jab xoogana ka dhac waa la iskala bursaday Arteta wiilashiisana waxaa tiin wiilal fiican waa dadaasheen sheekada barta sanadka dambe soo tartama maybe laga yaabo horyaalka inay qaadin laakiin meel Guardiola uu joogay Manchester City waxa iska celin karo maba jirto City waxa 12 kulan ugu dambeysay Arsenal arkeen 12 kulan Premier League way garaaceen wali waxa la markii la fiirshay haatan waxa meeshan ka socdo gumaad 8 kulan ugu dambeysay Arsenal soo boqotay Itixaadna 8 kulan waa la garaacay haddana sheekadu waxay iska noqotay double eed xil ciyaareedkan 3-1 iyo 4-1 xitaa League Cup-ka waa la sii cunay waashan waxa ka socda mucjisa ka socota Erling Haaland wuxuu noqday ciyaarankii ugu horeeyay taariikhda English Premier League 38 kulan season-ka la ciyaaray 20 kooxood looga dhigo 33 gool shabaq gaarsiiyo waliba ciyaaranka hadda wax iska dhicin kara malaha waxa la iska horar kalne uu sii sameyn kara maadaama wali horyaalka uu socdo maada ninka Norwegian-ka Premier League waa loo soo diray wuxuu ka sameeyaan wax dabcan waligeed la arka maaha dhinaca kan la Guardiola asaga xataa ciwaanada qayb uu ka yahay sababtoo Arsenal waayay si ciyaar 20 jeer uu garaacay inta uu macnaa yahay saadartay koox kasta uu ka badiyo 5 gool u dheeriya markii loo fiiriyo intuu Arsenal garaacay marka Arsenal baba iska la dhigi karaa haddaba aragtidiina ka dhibta idin soo celiyo kulankii ugu weynaa iyo hadal hayntii ugu weyn jirtay waxay ku soo ilaatay in City ay badiyeen Arsenal xasuuq loo geystay horyaalkan dhinacu aadi lahayo aadaas muuqato waa la saadaalina ciyaarta inay City badin karto laakiin farqiga waa yaraa 2-1 4 gool iyo 1 iyo awood in isku sheegto waxaan waxa waaye ceb waa Arsenal rally ahaada kooxdii horyaalka ugu wada badnaa inay ka badisay idinkana inta kale ka fiicantiin saas idin leeyahay sababtoo Liverpool iyo United iyo Chelsea iyo Tottenham intee ka baxeen Newcastle waa isku taagi waayeen City marka inta kale idinkana ka fiicantiin markii laga reebo Manchester City oo dabcan horyaalkan awood ku haysato oo waxay doontay ka sameynayso dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa naadiga Inter Milan ayagana waxay u soo baxeen final Coppa Italia kadib markii hal gool eber kaga badiyeen kooxda Inter Milan isku darka labada lugna waxay ku soo baxeen 2 gool iyo 1 ciyaartan waxa go'aamay ninka waqtiga fiican ku jira Federico Di Marco oo shabaqa gaaray kubadda caawinteeda lahay Nicola Barella inkastoo Juventus ay dagaalameen haddana sida guud dabcan mar wada duqda ah waa laga awood badnaaday oo Inter waxay xirteen difaacooda Simone Inzaghi waxa la dhihi karaa macalinka waa Master Cup koobka ku takhasusay sababtoo ay markii la fiiriyo Champions League wuxuu joogaa semifinal kooxda Italy haatan final u soo baxay kooxaha Fiorentina iyo Cremonese midkii u soo baxaan waxay u badantay Inzaghi
koobkan hore inuu qaadan doono. Inter saaxiibada qiimo badan waxaa lagu riday 3 darbo oo dabcan markii la eego laba kamid ee goosha ku aaday, sidoo kale markii la fiiriyo daawadayaasha qiimada kooxda Inter Milan ayagana 4 darbo on target ayay sameeyeen. Overall kubadda heshada waxaa badan Juventus oo 59% kubadda haysteen, Inter waxay haysteen dabcan 41% koornooyinka ama geeskalaas ku mid ee kaan labadan kooxood oo dabcan waxay heleen si diiwaan gashay 3 koorna ay heleen. Sidaa darteed waxay kaga dhigantay ciyaar kale muhiim ah ayay guuleysteen kooxda Simone Inzaghi haatan finalka u soo baxeen. Mkhitaryan digniin laga siiyay Inter Milan qaybtii ugu dambeeyay ciyaarta, Juventus waxa ka qaatay Manuel Locatelli. Sidoo kale tan kulankan ciwaanka waxa qaaday ninka lagu magacaabo Federico Di Marco oo shabaq gaaray xilli ciyaareedkan wuxuu maraa 5 gool dhammaan tartamada kala duwan. waxaa la leeyahay dabcan markii la fiiriyo daafacada Inter Soomaaliya 10 sano ugu dambeysay waxaa ka gool badan oo kaliya Ashraf Hakimi oo xilli ciyaareedkii 2020-2021 shabaq gaarsiiyay 7 gool dhammaan tartamada kala duwan. sidoo kale tan xogtan waxaa lagu kabayaa 5 gool oo Di Marco oo shabaq gaarsiiyay 4 gool kamid waxaa ka caawiyay Nicola Barella. saa darteed markay ka dhigan tahay Juventus Coppa Italia banaanka laga dhigay halka Inter Milan ay finalka u soo baxeen. dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa kooxda Chelsea xaaladda ku sii xumaanaysa sababtoo Frank Lampard sida uu imaado joogta ku socota naadigana kulankii ugu dambeeyay Brentford ayaa dabcan 2 gool ewer kaga badisay ayagoo joogan garoonkooda. weliba gool waxaa iska dhashay Salzburg kuwata qaybtooda ciyaarta ugu dambeyntii ciyaaraanka lagu magacaabo Mbeumo soo gabagabeeyay oo dabcan kooxda Chelsea waxay kaga dhigantay guuldaro kale ku dhacday ayagoo la ciyaareen koox London Derby ah. Blues lama yaqaan wax ka qaldan laakiin waxaa muuqata kooxdan soo Lampard u imaado joogta waa ka dagaalada. sidoo kale markii la fiiriyo xitaa dhalinta goolasha way iloobeen. Chelsea guuldarada ku dhacday waxay ka dhigantay kooxdan waxay fadhiyaan kaalinta 11aad ee kala sareynta EPL 32 kulan ciyaaran waxay leeyihiin 39 dhibcood ayaga 5 gool lagu leeyahay. Brentford guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay kaalinta 9aad ee imaadeen waxay leeyihiin 47 dhibcood 33 kulan ciyaaran. sidaa darteed Lampard waxaa la Chelsea inuu iska dhaafay ahayd macalinkan waxaa la xilli ciyaareedka markii isugu dara shaqadiisii Chelsea iyo tan Everton 23 kulan oo EPL ka soo muuqday 14 gool dar la kulmay 6 barbardhac u galay 3 gool u gaaray 13% kaliya xilli ciyaareedkan EPL guuleystay. Lampard waxaa la markii Chelsea uga sii daray kooxdana jawiga ay ku jiraan waa kii ugu xumaa ee taariikh ahaan kooxda Chelsea soo mara. haddaba Blues maalin kastaan ka hadalnaa ka sheekeen mala kooxda joogta ku socoto. Lampardna markii cabir laga qaato waxay kaga dhigantay 5 kulan ugu horeysay kooxda waa la garaacay shabaqana ma aysan gaarin Wolves, Real Madrid, Brighton, Real Madrid, Brentford waa markii ugu horeysay taariikh ahaan kooxda Chelsea dhammaan tartamada kala duwan 5 kulan isku xigta kooxdan shabaqa aysan gaarin. sidoo kale laga badinaa tan iyo sanadii 1993 Chelsea waxba helay. waxaan u rajaynaa xilli ciyaareedka inuu ka soo idaado oo seasonka dambe u diyaar garoobaan macalin wanaagsan kooxda loo dhiibay waxaan u badan tahay Pochettino inuu qaban doono. dhan kale markii aan fiirino kooxda Liverpool damaca kaga jira ciyaaraha Yurub seasonka dambe inay u soo baxaan weli way wadaan kadib markii ay boqdeen dhankaas West Ham United waxayna kaga soo badiyeen 2 gool iyo 1 ciyaar ka tirsan EPL inkastoo Lucas Paqueta darbad gantaal ka dhashay kooxda Liverpool qaybta ciyaarta haddana Cody Gakpo ku soo celiyay kubadda caawinteeda la Arnold. Liverpool xitaa way baxar fakadeen Gerrard Bowen gool shabaqa gaarsiiyay qaybta labaad aalada Faradi waxaa la garab dhaaf. sidoo kale tan qaybta labaad Joel Matip shabaqa gaar kubadda caawinta Robertson lahay. ugu dambeyntii xitaa qaybe ugu dambeeyay Thiago Alcantara 2 jeer kubad gacanta ka dhacday lagama dhigin. David Moyes uu xanaaq garsoorku la dooday. Liverpool 3 dhibcood qaateen oo sidaas ay dabcan socdaalka London ku aadeen ku soo badiyeen 2 gool iyo 1. kooxda kale oo hogaaminaya haatan waxay kaga dhigantay kaalinta 6aad kala sareynta EPL ay imaadeen 32 dhibcood 32 kulan ay 32 kulan ciyaaran waxay leeyihiin 53 dhibcood 22 gool banaanka u taala waxay u jiraan booska dabcan afraad haatan waxay u jiraan 6 dhibcood ay u jiraan laakiin Man United ogaada 2 kulan ay gacanta ku haystaan ciyaareen 30 kulan 59 dhibcood ay leeyihiin. Newcastle 31 kulan ciyaareen 59 dhibcood ay leeyihiin. marka Liverpool labada kooxood ay bacsanayaan ayaga dabcan waxay dheer yihiin midna 2 kulan dheer yihiin midna kulan dheer yihiin waxaana ku dhex jirta kooxda Aston Villa oo ayagana 3 kulan ciyaaran la imaadeen 54 dhibcood. ninka lagu magacaabo dabcan Trent Alexander-Arnold wuxuu sameeyay rikoor cusub oo ku aadana taariikhda wuxuu noqday ciyaaraankii ugu horeeyay kooxda Liverpool ka tirsan hal bil gudaheeda English Premier League 5 caawin sameeyay maadaama bishan Abriil gabagabada ku dhow Arnold 5 caawin uu sameeyay taariikhda weligeed ma san ciyaaraan Liverpool ka tirsan zamanka Premier League in hal bil 5 caawin uu sameeyo. sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo saaxiibada qiimo badan Robertson caawinta uu sameeyay waxay kaga dhigan tahay haatan wuxuu sii maraa ninkan 57 gool oo caawin ka sameeyay English Premier League wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda taariikhan EPL ugu caawin badan xitaa wuxuu ka saramay Eric Cantona oo hore United ugu soo celiyay United kaasoo 56 gool caawiyay. sidoo kale mar hore wuxuu noqday ninkan Scottishka taariikhda daafac dabcan English Premier League ugu caawinta badan oo rikoorkaas hore wuxuu kala wareegay Leighton Baines. sidahana barnaamijkan intaas ku eegaya fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub halkan subscribe inoo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.